Si aad lacag ula baxdid FX Primes waxaa u baahan tahay in ay lacag kugu jirto akoonkaaga. Sida u jeedaan hadda balansigeygu waa $318 ayaa igu jirta akoonka aan rabo inaan lacagta kala baxo. Si aad u bilowdo inaad lacag la baxdid, fadlan taabo saddexda line ee isdul saaran. Kadibna waxaad kasii doorataa ama kasii xulataa withdrawal. kadibna waxaad kasii xulataa screw agent withdrawals. Kligsii kadibna wuxuu keeni doonaa page-kan waxaa ku qoran screw agent terms and conditions. Fadlan akhri qoraalkani waa qoraal muhiim ah oo FX Primes ay kugu tala gashay. Kadibna transfer from kligsii kadibna waxaad dooranaysaa MT4-ka ee lacagta kugu jirto ama dhowr account haddaa ku leedahay mid ka mid ah aad rabto inaad lacagta kala baxda ka xul adigoo taabanaya. Kadibna waxaa imaadaa qaybta xigta, qaybtaasi kligsii kadibna waxaa ka doorataa MT4 ID. MT4 ID markaad ka xulatid halkaas waxaa ku qori doontaa lambar gaar ah oo screw agentiga uu leeyahay oo lacagta loo diro si uu EFC aan kugu soo bedelo. Kadibna qaybta amountiga waxaa ku qortaa lacagta rabtid inaad la baxdid. Tusaale ahaan aniga hadda waxaan doonayaa inaan la baxo lacag $10 ah. Kadibna waxaa imaadaa qaybta comments-ka ah. Qaybta comments-ka waxaad ku qori doontaa lambarkaaga EFC-ga ee lacagta lagu soo diraayo ayaa ku qori doontaa. Markaad dhammaysid transfer taabo. kadibna waxaa arki doontaa ama wuxuu ku dhihi doonaa website-ka iyo request oo success. Muddo gaaban kadib lacagtii aan la baxay ayaa EFC ahaan igu soo dhacday. Sida halkan ka arki kartaan lacagtii aan la baxay waa taa $10 la baxay $9 ayaa la ii soo diray. yacni qolada screw waxay iga jarteen $1 oo charges ah. Marka waad mahadsantihiin.